الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا كل هذا برنامج كوعي بالسياسة وهذا كلام داوتين مقباهية عالمية CNA TV. وحب برنامج كمان تنيدس عسين دونه. أنا قال محمد نور سوا. برنامج كوا حمرتي بواحد لبان مهد عثمان بيرو كميدا ولا وكيل البرلمان اسمه الديجان كجاريسا وأنا فيان كاسمه الكاسي. ممكن كل برنامج كوعي بالسياسة ده. وابحسن محمد. عندما نحن نقول بحس حالة وجود اسمه كجاريسا. ولا محمد عم سنتعي بعض الشيء أنا وما سنتين وليس كمان تعدي وليس نيسان ساد أكتهي معمول كجارسة دولة شديد على 2017 كي دولة جواي لما استلمت والله دسي ابني دولة لما هذا شقين هيان معمول كي شغال بدن ببلاوي إنكستو اللي دوينه حق العاها أي جيران وحق الدولة كورنو ما نيسه والعيسى اللي ربي وقتي عنوه لهين لكن الدولة صدقتين مركي سوق شيء أفر سعشان أفر مشروع بمركي وياه باللوضي مشروعي أنت هذا بدل هذا وجب واحد كان إلى تضام مشروع أنت كان هذا صفر عم بيكون معضل هذا الكل بدل مشكلة سوشة عندهم تا وأيضا التدوينها وحلو قبل دونه أوكل الجديسنا حق البيئة حق الجيادك حق بيرها حق عافماتك حق عبارشة اسكت حياله ay ku hawlanta inay samayso marka rajo badan baan qabnaa iyo wax badan ay dowladda qaban doonto nidaamka hawlad ay ku socotana aad baan ugu qanacsanaa dana baarlamaanka baarlamaanka markaan dib ugu soo laabto county-ga waxaa baas mariseen aad sharciyo ka mid ahaayeen in biyaha iyo dhulka in muddaha muran badan ka jiray sharciyo badan waxyaalihii aad labadii sano joogteen qabateen maxaa nihi walaal soo ogtahay markii la fiiriyo baarlamaanada goboleedka Kenya afartan iyo toddobada maamulada kala gobolada maamulka Gaars ayaa oo taya badan inta biil in marin hadda waqtigan hadda la joogo waxay leeyahay sugna baarlamaan kasta wixii biil ay ka maran ognahay hadda 26 biil baan marinay saan soo galay 26 ajanda marka rasmi ha 26 ajanda oo sharci noqonayn markuu gabana ansixiyay intooda badan uu ansixiyay macnaha maxaa weeye inaan wax badan xagga sharciga ka qabanay inaan dadaal badan sameynay inaan dowladda la sii dhow aan ula shaqeynay oo wanaagsan ay taa muujinaysaa waxyaalaha la mid waxaa ka mid ah biilka oo xil saaran xagga biyaha oo hadda sharci noqday oo kaasoo xakameyn doono cilladaha badan ee xagga biyaha maamulkooda jiray xakameyn doono guddi madax bannaan u sameyn doono oo maamul gaar leh oo biyaha maamuli doonaan gaarsoon aan ognahay inay biyaha dhibaato badan ay ka jirtay baahi badan ka jirtay ayaa hawlo badan hadda lagu hawlanyahay si wax loo qaban lahaa saad ogtahay budgetka hore baarlamaanka aan marinay wasaaradda biyaha maxaan siinay 1 bilyan iyo 600 oo milyan oo lacagta Kenya taasoo loogu talagalay in wax badan loo qabto Garissa County waxaan ku dhihi karaa haddii sida la rabo u hirgasho Garissa County baahi biyo way dhammaystiran doontaa 3 sano soo socota ayaan ku kalsoonahay hadana baarlamaankii si qorshaha loo dhigay maalmood waxaa Garissa marka dib ugu soo laaban xagga biyaha dadku aad bay uga cabanayeen yaraada ka jirta Garissa oo ay dib bixiye sameeyeen qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Garissa inta la gaarin deegaanada kale ee maamulku qaaranay 1 bilyan iyo in ka badan lacag ku bixiseen sida hadda sheegaysan ansixiseen wasaaradda ugu qorsheysan ka baarlamaan ahaan ma weydiisan su'aalaha walaal saad ogta horna waan ku sheegay idaaradda biyaha wax badan bay isku dayaysaa baahida biyaha qaybo badan bay leedahay sabab maxaa qaybo badan baa sabab ah oo ay kamid yihiin meeshii biyaha lagu kaydsan lahaa kaydkii biyaha oo aad u yaraa oo saad ogtahay hadda dowladda ay dhisayso kayd biyo oo aad iyo aad u weyn oo qaadaya 300 oo kun oo litir ayaa la dhammaystirhayaa saad ogtahay magaalada Gaar dhexdeeda 8 matoor baa ceel baa laga duray oo biyo taangiye kale fara badan oo la sameynaa leeman cusub oo biyo waraabinayna oo la siinayaa lacagtan aan ansixinay qoraal ahaan baan u ansixinay mooy lacag dowladda accountkeeda ku jirta ma aha waa lacag accountkeeda la rabo in kor laga soo siiyo nasiib darra dowladda kore ayaa lacag ka soo bixi lahayd ilaa xilligan oo wax lagu qabto lacagaha qaarkeed waxay ka imaanayaan World Bank qaarna countiga budgetka iska lahayd qaabka countiga World Bank waa la sugaa weli ma soo gelin tii national government laga sugaa weli ma soo gelin marka caqabadahaas iska jiraan laakiin program ahaan iyo qaabka loo dhigay howlaha loo dhigay aad iyo aad u habboonta waxaan filayaa 3 sano gudahooda Garissa wax oo man dambe inaan la arkayn
marka bangiga dunida wuxuu ku bixiyay lacag gaaraysa 100 milyan gobolkan waqooyi bari saddexda maamul ka jira Wajeer Mandera gaariso maxaa kaga soo hagaagay walaal waxaan filaynaa lacag badan baan soo gaari doontaa tira ahaan ma hayi laakiin saddex kameel markii loo dhigo meel ay lagu soo aadaa ayaan aaminsanahay nasiib darro walba lacag uu bixiyaa laakiin markuu bixiyo isla markiiba kuma soo gaarto waxaa laga yaabaa qoraalkeedii iyo seminaarkeedii iyo workshoopyada sameynaya inay waqti dheer qaataan 2 sano 3 sano ay qaataan markaa kadib la helo lacagtii la sugayo marka hadduu ilaahay yaraado wax badan baan ka filaynaa inuu ka soo baxo si fiican gaariso waa meesha ka badan waayii ugu dambeysay waxaa muranka taaganaa dhulka la isku qabsada gaar ahaan xilliyada qaar ay ka dhacaan dilad dadku isku qabsadaan heer dil uu gaaro dadka baarlamaan ahaan ma ka weydiisay wasaaradda qaabilsanayd sharciga walaal saad og tahay bilal badan oo xagga dhulka ayaan marinay oo xakamayn doono dhibkan badan ee joogtada ay soo joogo waqti dheer soo joogay oo dilka keenay boobka dhulka la kala boobi keenay hatta ruux maalgashan raba gaarsi dhulku ilaa ay adkaatay dadka waxaan dhihi karaa dalaaliinta gacanta u galay oo inta qiimo badan oo dhul iska oteen ay rabaan intaasoo milyan ay ka siistaan dadka waddanka maalgashan lahaa suu gabanaha hor u sheegay dhulka dowladda bixin doonta nin walba oo dhul rabana 1,000 shilin baa laga qaadan doonaa waxaana ku howlana sanadkan intuu dhammaanin 20,000 oo bulood inaan ka bixino gaaris oo 1,000 shilin uu nin walba iska bixin doono sharcigiisana la siin doono booskiisana la tusi doono taa maxay xakamayn doontaa isdilka waxay xakamayn doontaa boobka dhulka la kala boobay maxay keeni doontaa qallaasaha badan xagga dhulka arrimaha dhulka inaan si fiican u dejinno nidaam u dejinno oo maamulkeedana gacanta dowladdu soo galo ayaan ku howlana daana dowladda annagana dowladdu aan ku garab taagannahay gacanta ku dhigto maamulka dhulka gaariso markii ugu horeysay 2 sano cali buno uu ka ahaa hogaamiyihii adiga aad ka mid ahayd 4 sano dabadii sano ugu dambeysay waxaad ku jirto golihii wakiilada baarlamaanka ee ismaamul gaarisa markii ugu horeysay gaariso waxaa lagu qabtay shir ay iskugu yimaadeen dhammaan kountiyada gaar ahaan kuwa xoolo dhaqatada ee ismaamulada dalkani Kenya madaxweyne ku-xigeenka dalka ka soo qayb galay international community deeqbixiyaasha ama saaxiibada caalamka ka soo qayb galay wuxuu gaarisa fursad noocay u tahay shir noocan intaan la eego xoolo dhaqatada horta walaal muhiimad weyn bay noo tahay gaaris in shirka lagu dhigo ama gobolka waqooyi bari ee Soomaaliya ee degta lagu dhigo waayo Kenyada kale iyo adduunka oo dhan wuxuu lahaa meesha nabadgelyo kama jirto ma taxmili karaan gaaris inay shirkaas oo kale uu ka dhaco yani qaywadaas leh maxaan ku guuleysanay shirkaas in nabadgelyo inuu ku dhaco waxaan ku guuleysanay in si wanaagsan aan u samayno Kenya iyo adduunka oo dhan hadda waxay aamineen meesha meel nabadgelyo taal inay tahay meel shirkaas oo lagu qaban karo meel horumar taalo meel hoteelo fiican leh oo dadka ay ka cunteen ay saxdaan inaan lehna ayay muujisay waxaan leenahay waddankaana waa nabad waxayna dhiirigelinaysaa maalgashiyaasha dadka maalgashan lahaa waddanka inay si fiican waddankii u imaan karaan ay maalgashan karaan ganacsiga doonaan ay furi karaan meesha doonaan ay ka degi karaan meesha waxay doonaan ay ka qaban karaan marka aad iyo aad baan international community-ga iyo dadka maalgashatada aan ugu soo dhaweynaynaa inay ku soo dhawaadaan gobolkan waqooyi bari khaasatan magaaladan gaaris iyo county-gaba soomaalida degan gobolka waqooyi bari waxay ka mid yihiin dadka xoolo dhaqatada xoolaha gaarisu badanaa waa xarunta koonfurta Soomaaliya ilaa gobolka waqooyi bari oo dhan waa meesha kale xoolaha la iskugu keenay shirka xoolo dhaqatadan uu ka dhacay ismaamulada fursad ganacsi intee leeg ayay ka heli karaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer gaaris xoolo dhaqatada u ah shirkan walaal horta shirkan aad u muhiimsan yahay maxaa yeelay annaga darna Soomaali laf dhabarta annaga maxay ku tiirsan tahay xoolahaas oo si fiican loo xanaaniyo xoolaha oo suuq fiican loo helo Soomaali meel walba ay joogtaa dan ugu jirta gaaris suuqeedana waa suuq u furan gobolkan geeska Afrika oo dhanba xoolahooda la keenaa waa laga dhoofiyaa waa laga gotaa marka aad baan u soo dhaweynaynaa weli suuq fiican loo sii raadiyo oo gabanaan wuxuu ku howlan yahay inuu hilibkaas gaaris la dhoofiyo wadamaha carabta la xiriiro si toosna loo dhoofiyo taasoo filayno inay Soomaali nafteeda Soomaali joogto iyo Itoobiya ka faa'iido sorry marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa program aad fiican weeye intention fiican bay dowladda ka leedahay waxaana filaynaa inay keeni doonto ganacsi aad iyo aad xoog u leh oo isdhexgal
in la wada ganacsan doono la wada faa'iidi doono dadkana si fiican ay u wada shaqayn doonaan baan aad u aaminsannahay waana soo dhaweynaynaa. waxaa soo hadal qaaday amniga Garissa waxay xuduud la leedahay gobolka Jubbada Hoose Soomaaliya gaar ahaan deegaanka Canajoqor adiga laga soo doorto horma kooxda Al-Shabaab baa weeraro ku soo qaaday waxa ugu dambeysay ciidamada ammaanku bishaani aan soo dhaafin waxay qabteen era ka tirsan Al-Shabaab gaar ahaan waxa lagu qabtay deegaanka laga soo doortay Canajoqor. walaal horta dhibka oo Al-Shabaab meel walba adduunka jirta Soomaaliya way ka jirtaa Kenya way ka jirtaa meelo kale oo badan nala qaban way jiraan annana madaxas baan ka midna waa dhibaato ilaahay naga qabta wax weyn aan laga qaban karin waxaan filayaa dawladda inay aad u gaabisay howlo badan ay ka qaban lahayd waajibka ay lahaydna si fiican ay gudanin waxaan aad ugu buurinayaa dawladda inay xuduudadeeda adkaysato dadkeeda iyo maalkoodaba ay badbaadiso way jiraan nimankaasayta oo waddanka oo dhan bay ku jiraan Nairobi dhaari qalax baa ka dhacay Canajoqorna Kenya bay la mid tahay meel kastoona ka dhici kara marka waa in dhinac kasta laga dadaalo sidii looga hortagi lahaa si wax looga qaban lahaa sidii waddanka nabadgelyo loogu soo rogi lahaa Soomaaliya oo nabad noqotay baan anagana nabad ku heli karnaa intii xaaladda Soomaaliya ay kacsan tahay mise dhibaatada ka jirto xuduudka dheerna aan wada leenahay dee nabadgelyada isku mid ma lahaanayna marka dadaal badan in la geliyo adduunka international community in dadaal badan geliyaan Soomaaliya xagga amniga Soomaaliya la hagaajiyo marka ka dambe uu hagaagi karaa amniga Kenya way isku xiran yihiin amniga geeska Afrika way isku xiran yihiin amniga Soomaaliya hagaaga dhaqaalaha Soomaaliya hagaaga security Soomaaliya wax laga qabto wax weyn bay u taraysaa wadamaha jiiraanka leh oo dhanba taasaana ku cadaynaysa ciidanka Kenya xagga jooga sababta u tagay waa in aan nabad la heli karin intay Soomaaliya ka degayso marka waxaan ilaa international community-ga iyo dawladaha caalamka oo dhanba inay ka qayb qaataan si Soomaaliya xaaladda lagu dejin lahaa oo lagu nabadgelyo looga heli lahaa Soomaaliya qaybahan isdagaal iyo faraha badan hubka looga dhigi lahaa marka baa la heli karaa nabad waarta oo geeska Afrika si fiican deegaanka ka soo jeedo waxay martigelisay qaxooti in ka badan milyan gaar ahaan xerada qaxootiga xagga dheer iyo xerada qaxootiga Camboos wada ku nabi tan qaxooti badan dad badan oo Soomaaliyeed oo soo maray kana abaariyo oo laadii ka jiray beeyga Soomaaliyeed si gaar ah dadka Soomaalida xagga degan xerada qaxootiga ay kuwa waxa la xiraa Camboos oo adiga ku samaatay xilligaas sanadeed xildhibaan maanta xagga dheer aad bay u baqaan niyadan waxay ku yeeyaan in xilli kasta la xiri karo ka xildhibaan ahaan ka dawlad ahaan xaniga ka qorshaysan dadka Soomaalida okay horta walaalo ma soo su'aal fiican baad weydiinaysaa horta waxaan rabaa walaalahay qaxootiga qaxooti magac fiican oo qof lagu yeero maaha laakiin waa iska noqoto dee magac caalam buu iska noqday dad ka soo baxsaday dhibaato waddankooda ka jirtay oo annagoo kala nala mid ah horta aad iyo aad baan uga xunna horta waddanka inay dadka Soomaali ay qaxooti noqdaan oo waddanka Kenya ay kale ku soo qaxaan ama waddan jiraan ay ku qaxaan maxaa la sharaftooda iyo karaamadoodii baa ayaa meel ku dhac weyn soo gaaray mar walba waa loo hanjabay waxa la xiradan laga xiri siyaala qaxootiga adduunka aan loola dhaqmin baa loola dhaqmaa marka horta aad iyo aad baan uga xunnahay aad baan u cambaaraynaa Kenyana waa aad baan u cambaaraynaa inay mar kasta qaxootiga maskiimada xerada ku jiraan ugu hanjabaa waan xir rabaa maxaan leeyahay dawladdu u sheegay inay been sheegayso horta xeradan ma xiri karto awoodda ku xirtana ma qabto heshiiskii caalamiga ahaa ee la saxay 1948 ayaa dhigayay qof qaxooti ah inaan ilaa iskiisa u noqdo aan la qasbi karin nin nabadgelyo darro ka soo qaxay oo waddankii jooga aan ognahayna ciidankaana waxa Soomaaliya u jiro nabadgelyo darro inay tahay amnigii Soomaaliya oo xasilayn laguma qasbi karo qof qaxooti in xuduudka la gudbiyo marka aad bay u gafayaan bini'aadamkaas ay meesha ku nool dadka safaraha badan ee Soomaalida xuquuqdooda lagu gafaya mana rabno marka inuu gafo ammaan hala siiyo xeeladaha ku jiraan weli maxaa la Kenya xayraadan ay qaxootiga ku hayso ha ka qaado oo dadkan ka dhigta dad xor oo waddankooda dhex socon kara sharciga ku jira waddankan hala siiyo waa dad aqli leh waa dad ka shaqayn kara Kenya waa dad maal gashan kara waa dad khibrado badan la imaan karo ee waddanka oo shaqaystaan marka yaa la caburin inta ba cabur oo filan inta ka in cadaadiyana waa fool xumo Kenya ha ka fiirsataan leh aad iyo aad ha fiirsataan yaa qofkii sugeys marka in mas'uuliyadda intaas leeyahay dawladda Kenya kala hadasho Soomaalida qaxootiga ku nool hay'adda qaramada midoobay qaabsan ma qaxootiga dadkaas wakiilka isma iniga mas'uuliyadda Soomaalida wala horta ma santahay ana naftaana mas'uuliyiin Soomaali baan nahay waajib baan naga saaran inta kalaankaana waan ka hadlaynaa maxaa waajib ka saaran yahay oo sharcigan uu ku qeexan yahay oo ku cadi adduunka dhan inuu hoggaansamay United Nations qaxootiga ku nool Kenya
iyo qaxootiga Syria joogo iyo kan Iraq joogo iyo kan Yurub joogo waa isku xuquuq sida loola dhaqmo qaxootiga adduumada kale in loola dhaqmayo kuwa adduunka kale jooga waxaa loo ogol inay ganacsadaan baa loo ogol inay shaqaystaan baa loo nin walba khibradda uu leeyahay inuu ku shaqaystaan la rabaa nin walba waxaa la hantida uu leeyahay inuu ku shaqaysto oo ganacsi samayn karo ma aha dadka dad jeel ku jira madax bannaan oo lagu hayn karo xeelo oo la dhihi karo inta uma socon karto inta uma socon karto ruux bini aadam waxaa weeye duruuf baa ku kalifta inuu soo qaxo oo waddankaada umaade macbuus maaha marka in laga dhiga macbuus waa laga yara fiican marka Kenya ha ka xishootaan nooca nidaamka gumaysiga ee qaabka daran ee oo dhaqmayso ummadda Soomaalida ee islaamka ku nool xiriya ha ka fiirsataan leh haddaan nahay mas'uuliyiinta Soomaalida meel walba joogno waxaan rabaa go'aan midaysan inaan ka qaadano oo si fiican uga hortagno arrimaha Kenya ay wada inaan lagu xadgudbin Soomaalida ku nool xiriya qaxooti inaan loo caga jugleynin inaan la cabsiinin inaan waxaan munaasab aan wala dhaqmin ayaan aad iyo aad ugu buuran Soomaalida mas'uuliyiinta meel kasta ay joogaan deegaanada laga soo doortay caana joqor saddex sawir mareer ama waxa ka jira abaaro ku soo laabatay muddo dadku xoolo dhaqatada way qaxaan deegaana kale kale waxa Soomaaliya gaar ahaantada kale waxaan iga qorshe dadka reer guuraaga ee sameeyay walaal horta nasiib wanaag aniga horta xagga abaaraha way soo noqdaan waqti badan wax weyn kama qaban karno run ahaantii maxaan weynaan ka dadaalno xagga biyaha iyo dadka cunno loo geeyo xilliga abaaraha inaan ka dadaalno wixii kale Soomaaliya way isku goystaa Soomaaliya kale u gudbaan kol Kenya imaadaan Soomaaliya maxaa weeye xuduudkan gumaysiga u sameeyay xad noomaha Soomaaliya way isku gudbi way socon xagga u socon Soomaaliya joogan Kenya joogan Ethiopia Soomaaliya marka marba dhan bay aadaan hadda aniga maxaan nasiib wanaag aan rabaa inaan kuu sheego inay aniga meeshii laga soo doortay horta baahi oo biyo ay ka jiraan boqolkiiba boqol dadkayga biyo ku filan way haystaan wax baahi oo biyo jirtana ma laha waxyaalaha meelaha aan u malaynaya miisaan badan uu soo fuulayna waan ka dadaalhaynaa saan matoorada wax uga qaban lahayn sifa biyo zaa'id looga helo maxaa yeelay xilligan abaaraha matoorada naftooda biyadu hoos bay u dhacayaan maxaa yeelay biyaha aan cabno waa biyo roobka ee day dhulka galeen ay mashiimihii soo saarayaan maadaama roob kale uu deen biyina hoos bay u dhaceen taa maxay keenaysaa saxmi iyo isku guur badan u dhacaya oo meel kasta ka imaanaya marka countiga meelo biyo la-aan ka jirto meesha alxamdulilah boqolkiiba boqol biyo nagu filan waan haysanaa Soomaalida hadda gobolka Waqooyi bal inta badan meesha aan laga soo doortay iskugu tageen qaadna xuduudka dhan kale ka jiraan oo ka soo aadaan marka biyo nagu filan waan haysanaa raashinka oo dadka lagu caawinayna waa la geynayaa meel walba sifa dadka gaajo u dhamanin xoolahana waa la xanaaneynayaa oo daawo lagu duraya sifa ay u adkaystaan abaartan waqtiga dheer qaadanayso dawlad ahaan intaas hadda yaa qorshaysan fulay xad ismaamul waxaa tahay afhayeenka xukuumadda ismaamul deegaanka Garissa County hogaamiyihii madaxweynaha ugu horeeyay Cali Buno Qoran iyo golaha wasiirada aad bad ugu dhowdahay mushin baa laga keenay gudoomiyihii baarlamaanka ma khilaaf soo kala dhaxgalay Cali Buno Qoran iyo gudoomiyaha baarlamaanka mushinka loo keenay mise koox kala jirto walaal waa iska caadi baarlamaanada inta badan adduunka khilaaf uu ka dhacaa khilaafkaas inta ku gabanayo u dhaxeeyay afhayeenka baarlamaanka ma aha wuxuu u dhaxeeyay xubnaha baarlamaanka iyo afhayeenka baarlamaanka ayaa isgabshar u dhaxeeyay isgabkiina wuu soo dhamaaday si maslaxo wanaagsan buu ku dhamaaday waana iska caadi meel dad siyaasi oo badan iskagu imaaday khilaafaadka way dhacdaa meel kasta ka dhacdaa meelaha barkood gacan ka hadal baa ka dhacay oo gacmaha la iskula tagaa baarlamaanka laakiin tan maxay khilaaf oo afkan beeskeed wayna dhamaatay si wanaagsan bay ku dhamaatay si nabadgelyo ku dhamaatay wax khilaaf oo dawladda iyo asin baarlamaanka u dhaxeeyna ma jiro shaqada u dhaxaysana aad iyo aad bay wanaagsan tahay maxaana dan weyn ku jirta inaan u wada shaqeyno ummadana soo dooratay waqtigan hadda oo xaalad adag lagu jiro iska qabsi wax faa'iido reegaarso dhan ba ugu jirta ma laha marka waxaan ku buurinayaa kuwa arrimahaas hata kusii fogaadeen inay soo reebtaan oo dadkooda ay u shaqeeyaan dan aan wada qabsano Garissa County ku horumarin lahayn mujtamaca ummadda saan wax u qaban lahayn dadaalka annaga xagga aan u jeedino in bay lahan lahayd xildhibaanadaasi mushinkooda ilaa hadda may ka tanaasuleen wuxuu fadhin laga sameeyay walaal si rasmi ay u tanaasuleen waan baa dhacday waa la dhameeyay mushinkii way ceshadeen sidana wax mooshin oo la keenay ma jirin hindise un ba iskeeda qolaa dhan keen rabnaa ilaa saacadan wax la keena ma laha qoladii ilaahbaan keenina way iskaga laabteen hadda arrada nabad baad ka jirtaa iyo wanaag iyo wada shaqayn baa ka socota Cali Buno waxaa lagu xantaa inuu yahay shakhsi adag marka loola barbaariyo shakhsigii ugu horeeyay barasaabkii hore ismaamulka Garissa Nadiif Jaamac Cali Buno waa qof noocay ah xagga hoggaanka markii loo fiiriyo maamul wanaag walaal horta Soomaalida
ninkii maamulkiisa hagaajiya maxay dhahan waa nin adag bay dhahan kulle cali bun waxaa arkaa nin maamul wanaagsan keenay iyo nidaam iyo kala dambeyn countiga keenay isdhexyaacii iyo fawdadii badneed iyo ismaqal la-aantii way dhammaatay county hadda nin walba shaqadiisu qabsanaa nin walbana xad buu leh hadda maamul ninka countiga madaxda ka waa administrator inta laga rabayna waa un intaas inuu maamul fiican keeno kala dambeyn keeno dowladda programyadeeda iyo howlaha si fiican ku socdaan baarlamaanka shaqadiisa u qabsado executive shaqadooda ay qabsadaan wasiir kasta shaqadiisa u fahmo nidaamka laga rabtaa tiina hadda way socotaa maxaa haddaad biyo rabta wasiirka biyaha aadi haddaa beeraha wax ka rabta wasiirka beeraha iyo maxaa jira xogeyihiisa joogan meel walba leen bere haddii sharci la rabaa in la mariyo baarlamaanka waa iska leh marka nin walba xadkiisaa la tusay taana waxaan filaya inuu aad iyo aad u amaanan yahay shaqo fiicanna u qabtaan ila tahay inuu sii adkeena waan jeclo aad maamulka adag uu sii adkeeyo sifo kala dambeyn iyo nidaamkii lagu maxaa meelaan kala dambeyn jirin dowlad ma jirto haddii dowladda nin walba xad loo yeeli waayo haddii isdhexyaaca badan iyo fawdo iyo qas iyo muran badan ba ammaan iyo isqaqabsi badan oo macno lahayn marka wax alla wax isqaqabsi iyo fawdo iyo nidaam darro keenaya in la ilaaliyo oo nidaamka wanaagsan iyo jadwalka lagu wada wax aad iyo aad baan ugu kalsoonnahay cali bunow waa hogaamiyaha keliya ee barbardhigay Mandera iyo Wajeer safarada arrimaha dibadda aad ugu badan gaar ahaan safarkiisa Jigjiga iyo Garowe iyo Kutiga waxay kaga bedelan yihiin waxyaabaha kale uu ka qaban lahaa gudaha salahan maxaa uu xoog u saaray arrimaha dibadda okay walaal horta xagga geeska Afrika sida Jigjiga iyo Garowe iyo Kismaayo iyo Muqdisho iyo hore baan kugu sheegay waxaan ku dhahay nabadgelyada Soomaaliya iyo gobolkan geeska Afrika annaga Kenya ahaan dan baa nagu jirtaa inay xasilnaato oo nabad weyn ka jirto oo heshiis badan ka jiro oo khilaafaadkeeda la yareeyo dan baa nagu jirtaa saad ogtay intuu hawshan bilaabin cali bunow qorane wuxuu dowladda u xil saarnaa xagga nabadeynta geeska Afrika ay u xil saarnaa dowladda Kenya marka dadaalkii hore u wada weli sii wada inay nabad waarta laga helo geeska Afrika in xasilooni laga helo haddee aqoon zaa'idna wuu leeyahay xagga yani security-ga in maxaa weeye hata xayiyan xaggeeda consultant ka ahaa arrimaha security-ga marka inuu qayb weyn ka qaato oo nabad ka raadiyo waxaa aad loogu dhaleecaynayaa safarada dibadda uu ku aadayo oo gudaha ku fiirinayo gaar ahaan deegaanadani dhadhaab markii la fiiriyo deegaano badan oo ka tirsan dhul badan oo dhinacan Wajeer xigto xajkaan naga xigto dhinaca Tanriifa isqabqabsiga ka jiro oo dadku ay leeyihiin cali bunow ka gaabay shaqada loogu talagalay walaal horta wixii Kenya dhexdeeda way socotaa biyaha iyo waxaa ka mid ah awaara iyo dhul badan okay wax badan baa ka socda arrimahan geeska Afrikana waa arrimo muhiim ay ka naftooda safaraan dibadda aad naftooda xiriir badan buu ka keenayaa wadamaha dibadda iyo waxay lacagta dowladda Kenya in la siiso kuma filna baahida gobolka oo dhanba ama county oo dhanba meelaha barkood waa in deeq bixin la aado wadamo barkood wadamo kale xiriir in la sameeyo sida dowladda Qatar oo kale sida dowladda Holland oo kale in la xiriiro oo wax nagala qabtaan xagga xanaanada xoolaha xagga beeraha xagga jidadka xagga biyaha marka gabanaha waxa weeye budgetkan kaliya waa ismay waa in wax kala raadiyo xaggana aad buu ugu dadaalaya waxaynu eegtaa gabanaha Kenya oo dhan inuu ka fircoon yahay xagga marka la xiriirka caalamiga iyo meel lacag u doonaha oo meel hore ay goor naga xirnaa oo ana warba ka haynin inuu hadda leeman ka soo hagaajiyay oo wax badan naga soo galay saad ogta hadda xarumaha lagu qoodiyo agoonto kale lacagta dowladda Qatar baa laga keenaa hilibka Garissa County waxaa lagu wadaa in loo dhoofiyo dibadaha Qatar iyo meelaha ay qaataan xiriirkaas oo dhan baa anagu wax noo tari doona Soomaaliya dhan buu anfici doona gobolkan dhan buu doona maxaa xoolaha joogay suuq fiican laga helo Garissa xoolaha joogan Soomaaliya ama Ethiopia joogan inta loo soo suuqin hilibkooda inta laga dhoofin hilibkooda inta laga qaaday macnaha maxaa weeye gaasita dhaqaalihii baa kor u soo kacay dhaqaalahaas oo kor u soo kaco oo kabcana dadka oo dhan bay dan ugu jirtaa marka dadaal fiican buu sameynaya ma wax ka qaban lahaa ayadana xagga beeraha oo warshad u sameynaa waa markii u horeysay oo warshad laga sameynaa beeraha Garissa County waa ogta markay arrin yar oo masiibo dhacdo sida daadadkii oo kale beeraha oo dhan ay xaqi jireen marka ibar noqon jireen haddii aan helna beerihii oo wixii ka soo baxay lagu warshadeynayo Garissa dhexdeeda oo loo dhoofinayo meelo kale wax weyn bay ila tahay inay tahay baahidan badan ee joogtada ah markay abaal dhacdo wargaari raashin lagu geelina inay yaraan doonto ila tahay oo taa ay xakameyn doonto marka waxaan u arkaa tallaabo aad iyo aad wanaagsan oo u qaadan arkaa
arrin waxaa jirta isqabqabsi dadku aad ugu wareersanaayeen gaar ahaan hadal dhaafeen gacan ka hadal ee ka dhacday gobolkan Tanarifa iyo ismaamulka Gaarisa gaar ahaan dhul isku haysta dhul xuduud baa jirto arrintaas maxay dawladdu ka xalisay qorshe ay kaga damacsan tahay Gaarisa County gaar ahaan dawladda hadda talada haysa okay maxamed waa maasan tahay arrinta horta 3 mile maxaa la dhahaa 3 mile land dispute balla waa yani webiga wixii 3 mile xag ka xigo yay qolada xisaabsan Tanarifa waa qalad uu guumeystay sameeyay oo Soomaalida oo markaas hayta ka hormaarsaneed guumeystihii oo u dagaalaysa xornimadii NFD oo burcad ahayd oo huwaysneed markaa dul ku jireen qoladan Tanarifa maxaa maxaafidiin bay ahaayeen maamul kasto maada way la socdeen marka ayaga warka sharci lagu qoray inay dhulka ay iska leeyihiin Soomaalida waxay ay biyo soo doonata inay weerar ku imaato bay kuma jirta markaas arrintii Kenya marka way ka dhaqan gashay laakiin cabasho weyn baa ka socota aad baan uga hormarsanahay sharcigan hadda baarlamaanka kor u yaala baarlamaanka dawladda national government ka maxaana aad iyo aad ilmiyalkana oo dardaarma sharciga inuu marna uu meesha marin oo laga hormaado waayo nin walba webiga dhan buu ka deganayna Tanarifana dhankan bay kala anagana dhankan baan kaleena nidaam ahaan marka dood weyn baa jirta maxkamad inay tegi doontana way u egtay haddii xalka loo waayo maxkamad bay tegi doontaa maxaa ma suurtagelayso marna in Tanarifa ay 3 mayl oo gaar dhexdeeda qaadato waxaan ogolaanayna maaha ma la suurtageli karto maxkamad kasta oo adduunka taalaan la tagayna in arrinta aan ka guuleysano oo dhulkaas caadi noogu soo noqdo waana hadal ma la gashay maamulkaas way adag tahay in sharci iyo nidaam lagu soo lagu gooyo moogiye ma ogola way ka fog yihiin inay miiska wada halka maadaan qolan Tanarifa marka waxa weeye inaan si sharci iyo nidaam aan uga qaadano oo ku soo ceshino dhulka anaga beenbeenta lagu siiyay ayaan bay noqonaysaa weli waxaa ku jirnaa intigaas waxaa jirta ninkii ka horreeyay Cali Buno wada mashruuc la dhaho dhalinyarada shaqo qaran taa oo lagu shaqaale gelinayo tusaale ahaan Fanya Kazi oo dhalinyaro badan oo fursadaha lagu siiyay shaqaynaya Cali Garoobka ama geedkan magaalada aad ugu soo laabtay ka gulaan ay ku qaadan jireen andaraaska asaga ahaa waxaa joojiyay Cali Buno qoran ololihii markuu ku soo galayana wuxuu ku soo galin wax badan ka qaban doono baahida dhalinyarada shaqo la'aanta kuwa ismaamulka Gaarisa wuxuu ku eedeynay ninka ka horreeyay inuu waxba qaban okay walaal waa runta arrimaha sayta ugaatusi wala Soomaalida lamadan geeb u taqaana على قراب ها نظيف ما شاء الله نظيف هو شقالي ضد بدن oo uu shaqaalay wax sharci oo laakiin uu ku shaqaalay ma lahayn ay maxamed maanta dad lagu shaqaaleyn rabo waa nidaam iyo sharci lagu shaqaaleeyo maadaama aad idaarad aad hoostiga ee jirin oo la rabo inaad go'no yar qaadato nin dhalinyaro oo tuulada joog ka shaqeyn aad noqoto waa in sharci lagu saleeyo maxamed ما محوكش قين دونا وحبلشة وكش قين دونا ما بينه كش قين دونا ما محوكش قين دونا هؤلاء جود بكش قين دونا ما الانجليزي سبورت كش قين دونا مش هوستي وحشر حكمينا يعني تصايا إن اللي هتعرفنا واحد قرال أقول له ما ما بلاقيه يتكسر العجنة ويقول ليش أكاونتي مركز النظام بوليسي محلك كان بيل بالكينه بالكاسم فيرين هنا إنان سمينا regulation نو سمينا لغو شقالة أو هذي قبلنا دنبقوه معنا أنا سيفو لغو بعين كلام روح أنا جاي أركز يعني شقده وقبلنا job duty وقبلنا وقلنا أي تايم ماشي كشقينا يا ماشي هوستيجا يا عدة معمولة يا عدة صوبازي واحد كل واحد فازين نقطع معه ما كان شرعي عندنا كمرنا على سواء عندنا مرنا على سواء لغو دونا شقدنا بلا من دونا nidaamna waa loo dejin doonaa ay ku shaqeeyaan iyo meelaha hoos tagaan taasaa muhiim ah wuxuu ka qabtay cali balan qaadi intuu ku jiray hal ilaa mid taawan ka waxa uu qabtay cali balan qoran salaam wuxuu soo ahaa gudoomiyihii degmada xilligii dawladda dhexe ee dalkan Kenya ka arrimays intuu soo bixin dastuurkan ismaamul goboleedyada dalka Kenya wuxuu hore u sii ahaa qaybta amniga dawladda dalka Kenya sida sheegaysa dawladda wuxuu ugu qaabilsanaa geeska inta soo khibrad leh war balan buu qaaday qaar la hada ma naasacdo si ku doodeen dadka maaragtay ay wala la horto ma santahay dawladda hadda hal sano iyo wax joogta balanqaadka dhan hal sano iyo bar lagu ma booyi karo waxa wax kasto sameynta dhaqaalaha ku xiran
dhaqaalihii hadba soo u imaadaan wax lagu qabanaya sida hadda biyo kale tallaabo badan buu qaadan in dareemi karnaa yani qaabku ku wada hadee dhammaytirman inuu meel ku socdo fiican xagga dejinta nidaamkii iyo dowladda kala dambeynteedii waxaa noocad hadda nin walba shaqadiisu inuu ka saay oo aan isdhexyaacayn marka isdhexyaaca badnaa iyo orodkii badnaa iyo wuu dhammaaday xagga beeraha wax badan buu wadaa oon filaynaa waxaa la warshad baa hadda dhulkii la cabiray oo la raa in la bilaabo macnaheeda waxaa weye nafteeda in wax ka qabanayo xagga beerihii warshadii beerahaas waxaa ka mid ah centerka kansaga yaa la dhisaa isbitaal weyn oo kansaga dadka gudda waad ogta dadka anaga gaarsa oo dhanba ama north eastern oo dhanba kansar hadduu ku dhaco hataa baaritaanka lagu baari lahaa oo lagu xaqiijin lahaa cudurka inuu ku hayo waa in Nairobi lala soo orto xarun waxaa la dhisayaa cancer center oo gaars iyo nawaaxigeeda iyo north eastern oo dhanba lagu baari doono dadka waana dadaal uu sameynayo dowladda kanta lacag gelinaysa qaybna dowladda kala bixinayan maxaa ka mid ah inaad ogta moogi waa maqashay inay 2,000 kilomitir oo laami uu soo helay MOU-ga la saxay shaqadan ay bilaami rabto gaaridii iyo isticmaal lahayeen dadkaas shaqada qabanaya inay dowladda hadda ay soo gadayso ay keenayso marka waxyaalo la taaban kara weeyo maxaa kaloo ayadana muhiim ah countiga Gaarisa maybe qiimo meel loogu soo helo xafiis ma leeyahay hadda xafiiskii loo dhisaya countiga Gaarisa ay u horeeyay una dhameeytisma adi 2 bilood gudahood ma hogaamiyihii Gaarisa meel lagu soo hagayo horumarka Soomaaliya ma lahayn xafiis madaxtooye ma lahayn ha xafiiska BC-ga ama brasabka uu ku shaqeynaa si kumeel gaar u shaqeynaa waa dowladda nadiif wasiirada dhan waxay ku jireen guriga kire dakhli badan baa aaday in guriga kire lagu bixiyo hadda xafiis lagu soo tooso dowladda oo wasiirkii biyaha kii waxbarashada kii kale gabanaha yaad heli doontaa oo muuqdo taa nafteeda wax weyn oo la taaban karo dowladda in loo helo meel laga soo toosi karo baarlamaankiina mar waxaa jirta hor keenteen biil ahaa oo ciidamada amniga tacadiyo badan bay gobolka geysteen gaar ahaan ayagoo sheegeen inay kursanayaan ama daba socdaan al-shabaab ciidamada sida gaarka ahaa ee la dagaalamaya dad badan oo shacab gaar ahaan reer Gaarisa dad badan oo culamo ganacsato badan bay wax ku sameeyeen dhacdadaasi wax ficil ka celisan walaal arrin baad hor keenteen baarlamaanka arrimaha amniga waa horta arrimaha yacni la developgareey oo countiga ay ku shaqaleeda maaha national security annaga meel aan ka soo gelayna malaha wax biil oo xagga ku saabsan oon gudbin karnana malaha baarlamaanka qaar ka mid ah tare maxaan u dhiibi karnaa fikradda annaga maan ka cabiri karnaa mogi wax biil oo marin karna biil maxaa waa sharci biil maalinkii la ansixiyay baran u saxay waxaa rabaa inuu la saxo sharci u noqdo qaybta security-ga countiyaha laguma wareejinin madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa mas-uul ka ah ansixin karaa biilka markuu baarlamaanka nationalka mariyo marka fikradda annaga maan cabiri karnaa ka dhiibi karnaa mogi wax biil oo marin karna malaha marka nin alla ninka fikrad ka dhiibtana dee waa nin uu wixii la ahayd ka hadlay wax weyn oo hadda ay keeni kartana ma laha يعني يعني عبريسا يعني ساعات أول حنتم بعد شيء كرتا. أيضا برنامج كان سوق قرني الحين كحوجين كدلك كينيا ولين روتو إنه ده وصلنا رأي وجودهم بس أدخل ضمن جا جالس جارا عند باب وتجي دجانا بدنا جالس فافيو تجي وبرا كتجي العقوب هي مدارس كتير قلنا بس ما جالس أسوق جدا بس ما مرضى المسلسل يقولش من الحين بس دنا كروس سياسة باجر جودانين كدانين ولا الهرت مدحوين كحين كوهرت نين دار بدن عادي عاد دار بدن أنا حول لقطان دانا نيك عاد نود وين حتى أنا هاي إسلامنا عاد نود وين حال أنا نيك مدرسة دوكسية مساجد العقوب كرو نيك عسيف عمو نضح قال برجع عن فيلنا كل جالات كان عاد نود وين هذا السياسة هذا كل موجود عاد بنقول في صندوقنا مال عندنا كل ميستاجد دونا دانا الصومالية waxaan raaci doonaa meel alla meesha loo bato Kenyaanka loo bato ama ka mid noqon doona laakiin Ruto waa nin dalban aad baan u kalsoon aad baan ugu dhownahay inaan taageerno hayla wax kale oo codna weydiisto hadda oo siyaasad u socdo ma arkin oo madaxweyne rab ismaamulka dariskiina wajeer sanad iyo barbay maxkamad saarnaayeen gabar gaar ahaan reer Gaarisa xarunta gobolka waqooyi galbeed Gaarisa inta la qaaday ismaamulada wax wada hadal muu samaysan isugu yeertay miiskooda hadalka si aad u dhameystiin ninkii hore xilkooda iyo ninkii xaadsan ma walaal arrimahaas ay waxaan ka qabanay malaha maxkamadooda kul dhow way dhamaatay saad ogtahay
waqti dheer ba lagama joogo haddii waxaan aada u waaninayaa inay rabshada yareeyaan oo county wax laga qabto oo kaysaskan badan iyo maxkamadan iyo isfurfurkan baan iska daayo waa niman walaalaha naga Soomaaliya wajaar inay xasilooni iyo nidaam ay yeelato aad baan u jecelnahay inay kala dambeyn yeelato aad baan u jecelnahay inay heshiyaan aad baan u jecelnahay waa niman Soomaaliya inay heshiyaan baan aad iyo aad ugu boorinaynaa laakiin wax dadaal ka geysana ma mahad cusmaan beere waxaa tahay golaha baarlamaanka ismaamul Gaarisa sida uu aragtaa kiiskii badda muranka dhaliyay ee dowladaha Kenya iyo Soomaaliya walaal kaas kulli aan horta nin Soomaali baan ahay si fiican Kenya inay aad u qaldan tahay si fiican ayaan aaminsanahay si fiican loogama faa'iideysan karo Soomaaliya yani burburka iyo dhibka haysta iyo colaadda ay soo martay in dhulkeeda lagu boobo ama dhici karto si fiican haltaa ko Soomaali lama qaadan karo si fiican Kenya inay ku qaldan tahay aaminsanahay si fiican Kenya waxaa la jiranimada ha ilaaliso si fiican Soomaali qaranimada ha ilaaliso si fiican waxaana ka go'aantoodo si fiican inay yani damaaciga noocaas ay damaacinayso dhulkaas inta Soomaaliya ka tirsan si fiican Kenya xuduudeeda calaamadaysiin waan ka saynaa si fiican iyo ku xadgudbin jiiraanka anaga ka fiirsato si fiican waad mahadsan tahay mahad cusmaan beere barnaamijka maanta waqti haysiisa aad baa thank you waxaan daawadayaal barnaamijka wacyiga siyaasadda ayaan kusoo gabin waxaa martigu ah xildhibaan mahad cusmaan beere oo ka mid ahaa golaha baarlamaanka ismaamul goboleedka Gaarisa anigoo Maxamed Nuur Sugo ayaan ila socodsiinay intaan barnaamijkan iskugu imaan waxaan igaga tagayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh